بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله سبحانه وتعالى خير كان الله ينوافجي الله ينوكل بيه كلمة إذا موضوع culaysyada qoyska hor yaalla ee khatar gelinaya jiritaanka reerka waxaan filayaa qaybihii hore reerka suu dhismi lahaa baa laga sheekeynayay iyo midhaha reerka iyo ubadka si loo daryeeli lahaa aniga mawduucaygu waa sidee maxaa dumin kara see looga ilaaliyaa tusaalayaal baan soo qaadan doonaa waxyaabaan ka tilmaami doonaa waxaa laga yaabaa wax marka reerka sida wanaagsan loo dhisayo in la ilaaliyo laga eegay haddii la ilaalin waayo dhibka ka dhalanaya inaan iyadii ku salabo gowraceliyana way dhici kartaa arrimahaasna waxaan ka tilmaami doonaa dabcan dhammaanteen waan wada ognahay dhibaato qoysoo badan reero dumaya oo burburaya dad iskhilaafaya oo kala tegaya aad bay u badan tahay qofkii reer oday u noqda ama dadkii is haysta ay qadaa iyo xukun iyo su-aal ula yimaadaanna waxaan dadka gaargaar ugu dhicin baa isugu yimaada oo kusoo wada dhaca marka waxaan ugu soo dhacaya waxyaaba fara badan oo kays kastaba ama qadiyad kastaba markaad gaar u baarto aad dhihi karto sababo aada u soo noqnoqda iyo kuwa marmara isugu jiraan marka ma wada koobi karna sababaha qoyska dumitaankiisa keeni kara insha allah 30 daqiiqo way ugu filantahay waxaana waa dhowr arrimood ilaa 5-6 inaan ku soo ururiyo laga yaabo inay kala badan yihiin dhibta ay qoyska jiritaankiisa ku hayaan sheegitaankeeduna uu ka dhigan yahay in laga dadaalo intii suuragal oo laga ilaaliyo marka koobaad waaran aan filayo muxaadaradii horreysay laga hadlay marka la guursanayo jid dheer baa la marayaa wax dheerna waad hiigsanaysaa markuu qofku qof guri la wadaagayana wixii qadar gadaal ka yimaada waa gaarkeeda laakiin nolosha inta u dhiman qofuu la wadaago oo la qaybsada buu raadinayaa wuxuu raadinayaa qof reer markay wada dhisaan dhalinyaronimada wada qaataan dhowaanna haddaan aajaal iyo mowd kala geynin ay waayeelnimada wadaagaan qof ay ubad wada dhalaan ilmana wada barbaariyaan saa darteed baan filayaa saakin laga hadlay guurka wanaag in la isku doorto waxyaaba la ilaaliyaa jira sharciga marka la dhisayo guurku iyo reerku waa guri la dhisayo guri waa asaaska hore hadduu ka xumaado nere waxaan maqalaa mar waliba guri dhismihiisa intaasoo dabaq marayay baa dumay ama kollaabsi gareeyey sababtoo ah dhismihii hore injineerkii birihii dhagixii shubkii baan si fiican loogu caga dhigin qoyskuna waa sidaasoo waxyaabaha khatarta dumiye qoyska ka mida marka la dhisayoon salka la adkayn aan laba tusaale ka soo qaato waxyaabaha salkaan la adkaynay dhibkay keenaan marka la guursanayo waxna waa waxyaabaha wax dhammaystira oo guryaheenna aynu naqaanahay kuwana waa dee fitinkii iyo bayntinkii iyo kalaradii nalalka loo sameynaya qurxinaya wey waxna waa birtii iyo dhagixii iyo shamiintadii uu ku taagnaa iyo asaaskii foundationkii iyo bayskii loo sameynaya wey in bayskii laga tago oo waxa muhiimadda la siinayaa nalkii lagu xirayahay riinjiga la marin lahaa guriga hadduu noqdo dee guriga ma xajin karaan guri tiir adag bay qurxin karaan saa darteed buu sharcigu wuxuu ina faray in diinta qofka 3 arrimood oo laga tagay dhib badan bay keentaa reerka way dumisaa qofka diintiisa in la ilaaliyo oo qofkan aad nolosha la wadaagaysa rag iyo dumarku dooni ha noqdee inaad tiraahdo horta ilaahay ma ka cabsanaya suu adiga ku xuquuqdaadu ilaaliyo tii rabbigii ma ilaaliyaa waa marka koobaad waa marka labaad diinta keliya kuma filla dabeecadna ma leeyahay qof diin badan oo dabeecadda ibarka ah jira noloshu alla ka cabsi kaliya laguma wada dhaqmee
noloshu dulqaad iyo wax badan bay u baahan tahay arkaysaa qof cibaado badan oo dabeecadda eberka iyo qof cibaado yar oo dulqaad badan baad arkay sida diinta alla ka cabsida xuquuq inuu ilaaliyo damiirkeeda loogu baahan yahay baa dabeecaddii lagu wadi lahaa reerkana loo baahan yahay labadaa waxaa dheer inay dadku israbitaan ka dhexeeyo soomaalida waxay yidhahdaan qoolii qoorqabad biyo kuma cabto digaagga yarka haddaad qasab biyo qoorta ku qabata cabbi maayo ilmaha yaraad caanaha siinaysana isagoon rabin qasab haddaad masaasad afka u gelisaay qaadan maayo hooyo hadday naas ku qasabtana ka nuugi maayo ilmihii yaraa iyo shimbiri hadday saayiin dee qof weynna jidkaa dheer iyo reer dhaqan u baahan rabitaan la-aan kuma dhaqi karo waa laga yaabaa reeruhu inay israbaan laakiin waxa raaska noqonaya reeraha maaha labadan raaska iyo guriga gelaya way waxaa dumiyey marka reeraha haddaba marka u horeysaba inaan qofkan laga eegin ilaahay ma yaqaanaa waad arkaysaa dacwada waxaa badan markii la isku dhacdhaco waxaa koobaad ee wadaad baad la hadlaysaa dacwadda kow waxaa lagaga bilaabaa sheekh ma tukada ninku sigaarku cabbaa wuu qayilaa dacwadda waxyaabaha laga bilaabay ka mid tahay dumarku ka bilaabaan ninkuna wuxuu isleeyahay iyadoo waxaa la isku hayaa asaasiga aynan ahayn salaadii baan ku kari la'ahay xijaabkii bay diidan tahay qaraabo xiriirinta kuma fiicna way qaylo badan tahay ninku wuu qaylo badan yahay ninka dabeecad la-aan weeye waa dagaal miiran wuu i caayaa waalidkaybuu caayaa hooyadaybuu caayaa ma ka furnahay waa mashaakilaadka aadka u fara badanee nagu soo laalaabta maxaa sabab u ah dee qof la caayayo guriga wanaagsan kuma dhaqmi karo qof waalidkii la caayayo kuma dhaqmi kara guriga hadday gabadhu ninka aabbihii iyo hooyadii isaga caydo ama ninku gabadha aabbaheeda iyo hooyadeedii u caayayo oo qof aan ilaahay ka cabsanaynin ama akhlaaq wanaagsan lahayn uu yahay wakti bay sasabi karaan oo yar adkaysan karaan wakti kadib qofku wuxuu gaarayaa xad uusan xamili karin sideedaba marka la isku cusub yahay shaqaad ku cusub tahay waxbarashaad ku cusub tahay guribaad ku cusub tahay wakti buu dulqaadkaagu leeyahay marka dambe karku weelku waa buuxsamayaa meel buu gaarayaa wuu qarxayaa marka maxaa qarxiya reerahoo aada u dumiya raggii qaad bay ku maqan yihiin cawoo dhan filimaan buu jiraa maantoo dhan ilaahay kama cabaye sigaarkaa la qiiqinayaa islaamtu ilaahay kama cabsato bad iyo bawd weyn baa lagu jiraa marka dambe qofka way soo karaysaa diintii marka laga tago waxaa u badan hadda laba waxa la isku raadsado ragguna qurux bay raadiyaan haweenkuna nacfi bay raadiyaan ragguna hadda nacfigii wuu la soo galay nacfigiina waa la isla soo galayoo hadda bahar sponsor la yidhaahdo iyo waa la isku dhoofayaayo waa guuraan daacad bahayndii iyadana inaan ku dhoofaan rabaa qac qoorta la isla gelayaa berri inaan ku dhoofaan rabaa way dhoofinaysaa wuu dhoofinayaa lugtaan ka xiranayaa layn baan ku tallaalanayaa markii horeba waxa laisu guursanayo wuxuu ahaa nacfi waagi hore dumarkaa ku badnaan jirayo ninka dhaban iyo qurux maynan ka eegi jirine waxoogay dhaqaaliya nacfi iyo wuxuu haystay ka eegi jireen gaariguu haysta iyo guriguu degan yahay iyo shaqaduu hayi iyo baa haweenka muhim u ahaan jirtay hadda laakiin raggii baa la soo galayo mid waxoogay dukaan haysatiyo mid waxoogay qararafihiyo mid waxoogay sponsor laga heliyo waa la isla soo galay xoolihii ama si loo cuni lahaabaa la isku qabanayaa ama gabar baa la guursanayaa waxoogay dhaqaaliya waxaysa isagana biilkaasuu ka rabay marka xoogay la joogo qaalaha adduunyada uu hooska labada gelin oo waxbaa burburaya wixii la isugu rabay meesha maba yaalba ninkan dhaqaalaa loogu xishay wuu burburay ama dhaqaalihii waxoogay bay yeelatay oo qarqaxooti baa la noqday oo garaan iyo caydh baa la wada qaatay waa isla jeebakaaday qadiyadaasi markii hore oo lagu sireeyey manfaco iyo nafci iyo ninkii marka hore gabadha dhaban ugu xishay dhowr do-ood markay dhasho mid ka dhaban badan buu arki wax raadis kalu bilaabay isagana markii hore dee waxaa laga yaabaa midda kale tuu dhabanka iyo quruxda ugu heshay inay qiimihii iyo dhaqankii wanaagsanaa yeelan weydo saa darteed waxaa la yidhaha qamaan bulxan raggii soomaaliya gebi jiray buu ahaa
boqol halaad buu gabadh ka bixiyey iyo qori iyo faras gabadh dheer oo qurux badan bay ahayd laakiin qof aad u fudud oo macno daran bay ahayd isagoo reerahoo markuu arkayna iyadii ka khanaasay xoolihiisiina yaaban baa seedigii oo wax doonaa soo martiyey habeenkii dambe haddana isagoo tii horeba khaati ka taagnaa baa tu kale laga rabaa markii habeenkii la cashaynayey yuu gabay sarbeeba u tiriyeyo ou leeyay tii horaan ku khasaaray haddana tu kale ad iga doonaysaa haddana xoolo kale ad iga rabtaa sarbeeb bay ahayd ninkiina waa fahmay oo haddii la seexday marka lasoo toosay ninkii walaalkeeda hamaba joogaba xalay saqdhax uu guuray waa tago wuxuu yihi meeshani gabadha kaxayse waaguu beriyey markuu beriyey aan lagu dhihine iska sii soco qabaan baa wuxuu yidhi baa la yidhahdaa isagoo walaalkeed la hadlaya baal goraya waa lagu ogaa inuu bidhaamaayo baalka gorayada bidhaan iyo qurux baad ku ogeyd berbera maalintuu tegey waxaa bi'iyey miisaani markii la miisaamay eber bay noqotay baal gorayo baalka goryada waa quruxsan yahay laakiin haddii kiilo laga dhigo muxuu gooyaa waxba boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacay wada ba-an bini aadamkii midkaad waaya barataay reerku markuu dhaqmayo qofka qiimihiisaa dhaqee muuqaalkiisu ma dhaqo dee gabadh la guursaday ee nimaad guursatay dee ku xidhan maysid tabeellaha halkaa ku xidhatay iyo waxa derbi kaaga lalmada ka dhigi mayside nolosha harjeedka ee dhaqaaladoonka ee ubad la dhaqayo ee la jiranayo ee la caafimaadayo ee la qaxayo ee la cabsanayo oo la faqiirayo baa rabtaa hardanka nolosha inuu kula qaybsado colaad iyo nabad gaajo iyo dhereg cudur iyo xanuun iyo caafimaad cidlo iyo dad la dhex joogo ubad iyo ubad la-aan qofaad rabto nolosha dhibkeedii iyo dheefteeda inuu kula qaybsamaaye dee ubaxan markuu banaanka la dhiga la bedela ma aha haddii markii hore dhaban iyo kuma guryo ku quruxsi ahayd dee ubaxu markuu waxooga yar duugoobo dee mid kalea lasoo gataa soo maaha mid kale raadooda meeshaas mabdii horaa sidaas ahaa mabda iyo manaaficdii waxaa labaad dadkii marka la isku qasbeen rabitaan jirin qolay qorqabad biyo kuma cabtee laba aan israbinoo niyadiisu hayninna reer ma noqdaan oon la eegaynin dadku maxay ku kala duwan yihiin da-bay ku kala duwanaadaan deegaan bay ku kala duwanaadaan qaybta mujtamaca iyo bulshada ay ka tirsan yihiin bay ku kala duwanaadaan dabcan labada reer markay dhaqmayaan qofku laba isdhaqan fahmi karto isu soo dhaqan dhow inay yihiin wey haddii laakiin laba qof oo midna magaalo ku koray midna shalay baadiye laga keenay caawa guri la isugu keeno xataa isku sheeko maaha kan wuxuu ka sheekeynaya sheekada yaqaaniya kan wuxuu yaqaana maaha labadan ruux waa inay helaan wax kale ay ku kala mashquulaan iyadana waxay ku mashquulsha waa inay heshaa isna wax kale waayo iyagu iskuma mashquuli karaan haddii la yidhaahdo dantii reerka ha laga wada hadlana isku maskaxay dan kaga wada hadlaan isku injinba ma saara mid walba injin gaara saaran marka isma fahmi karaan nolosha saa darteed bay fuqahadeenna shariicadu waxaa lala yaabaa kafaa wax la yidhahdo ay ka hadlaan labada isguursanaysa laba qof oo isu dhigmi karto dhaqmi karta waa inay yihiin waxay eegaan labada qof ma magaala mise baadiyo waa lagu kala duwanaadaa magaalo haddii la joogo levelka qoysaska dhaqaalaha waa la tixgeliyaa haddii aad laba qof isu keento oo qaabka levelka dhaqaale ay islaamis iyo villooyin u kala fikirayaan dee islama qabsan karaan maxay sababi in la isku dhaco la isfuray sababi macnaheedu labada shaksi baa kala qiimi badan ma aha si kale laakiin qoys dhaqankii islama fahmi karaan wey markaad isu keento laba qof oon isku da ahayn oon isu dhoweynna isku dhacooda wuu badanayaa waxyaabo badan baa waxay eegaan deegaanka dabaqada mujtamaca lagaga jiro qaab dhaqanka sida loo wada dhaqmo duruufaha dhaqaalaha ee ku xeeran intaa qofna lama liidayo laakiin qoysku see ku dhaqmi karaa wey labada qof oo isku reeraa la isu diidayaa laba aan isu reer ahaynoo laakiin levelka bii'ada isqaadan kara baa laleeyahay labadana ay isguursan karta lama eega reer iyo qabiiliin badan marka waxaan rabaa inaan idhaahdo qoyska waxaa dumiyey u horeeya waa asaaskii dhismaho khaldama kaasi burburin badan iyo khatar badan buu qoyska ku hayaa taa marka laga soo gudbo waxaa labaadoo qoyska dhib badan ku haya in guurka wuxuu yahay aan la aqoon daayartu gaar ahaan markay guursanayaan
guurka waa loo ammaanaa waxaa lagu soo ururiyaa guurka macnihiisu bisha iyo dhowrka biloodii hore arooska lagu soo ururiyaa waxa ka dambeeya looma sheego waa la sheekaystaa waageennan dambe gabadhu wax walba okay wayay dhahdaa okay wiilkuna wax walba okay misrayd iyo mistrayd baa isguursanaya misrayd iyo mistrayd baa isguursanaya marka wiilka maskax wuxuu qaadanayaa laba qodob ka kooban ay gabadhuna la qabto kow qofkan aad guursanaysa waa malag wax walba waa okay malaa'ig aan waxba khaldamaynin waxba la isku diidaynin maskaxa waa informationka khaldan waa la isa siinayaa iyaduna information khaldan bay siinaysaa waagii hore ragga waxaa la dhihi jiray haweenka been baa lagu soo xerogeliyaa runtana waa lagu dhaqaa dumarkii laftoodu khadkii iyo taagtikadii laftooda ragga hadhow dhabtaad ku dhaqi doontaaye beentana waa lagu soo xerogeliyaadii dumarkiina waa ku soo biireen bal adigu sheekooyinka la qoree la isku shukaansado ama dhallinyarta la sheekayso warayso ama meelaha baraha lagu qoro akhri qof walba malab iyo jaam iyo bacaan baa la wada marinayaa meel qallooc iyo sakalle waa laga ilaalinayaa hadhow laakiin maxaa la ysugu iman dabeecaddii ilaahay ku abuuray iyo aadam iyo duruuf nololeed baa la ysugu iman laba guurka markay ka sheekaynayaan waxaa la waraystaa qofka guurka cusub ee da-yarta guursanaysaay dadkii hore u guursaday ma waraystaane intay marxaladii arooska soo dhaafeen nolosha xaaladeeda kala duwan galay lama waraysto gabadhu gabadha yar bay waraysataa wiilkuna ninka dhallinyaradee la da-da ahaa ee hadda guursadaye carabigaba lagu yidhahda shuhuurul casalka la waraysan guurkuwa mutca iyo macaankaasaa laga haystaaye mas-uuliyad dheer iyo culays dabada inuu ku wada laguma tashadaba mas-uuliyad dheer buu wataa saas darteed marka u horeysa ee gabadhii ilmo calool galay walac noqoto qaar baa ninka lagu diri oo nici ufdhi qaar baa guriga lagu diri qaar baa cunada lagu diri qaar baa waxbay nici dalaaq badan wuxuu dhacaa wax fikrada lagama haye gabadhii shalay okay la islahaaye usbuuciya bil wada joogay ninkii bay ka soo booday xaalad ku soo korodhay inay tahay warba lagama hayo markaasaa la isfuriyo hadhow baa la dhihi sheekh dalqad baan ku furay ee qiil ma la ii haya seen yeela ma ogeynoo gabadhu walac bay hadna waxaan waxba kama aqoonin marka hore ilaa waraysta lama ogola mid baa iyadii nici mid baa guriga nici xaalad maxaa ka dambeeya ilmaa dhalan ota reerkii kharash badan baa dabada ku haya yaa ka bixi karaba la isma dhihin ilmaa dhalan saddexdii saacba ugu badnaan mar in loo soo toosu u baahan na ilmahana dhaafi una hurdo seeji suuxii baan ka lihi habeenkiibaa hurda la-aan horta marka horeysa garaan labada cusubi inaan habeenkii ilmahan si loola dhaqmo ma yaqaanaan reero badan baa markii ilmuhu yar yahay oo cusub yahay isku fura maxaa yeelay si loola dhaqmana ma yaqaanaan ilmo yaroo dhashayna calooshiisu waa yartahay saacad iyo badh 2 saacadood 3 saacadood ugu badnaan markuu dherga sabri karaa reerkii waxaa laga yaabaa hal qol iyo fadhi baa la degan yahay xaggee ilmihii la aadi nala dhaaf ilmahan seexani iyo waa hurdo seejisay dagaalkii ka bilowday ilmahaadan rabin qub iyo qacdaasuna guurkii mas-uuliyad dhaqaaluu leeyahay mas-uuliyad sabir dulqaad buu leeyahay xuquuq baa kugu waajibi gabadhu xurriyad bay lahayd caawow iska cawaysimi jirtay dadkay rabtay la haasaawi jirtay markay hooyiya reer noqotaay hoggaan bay gashay maamul bay gashay hadda xaafadiina markaad joogto xor baa tahay laakiin maalinkaad shaqaalo noqoto saacad baad ku iman xilligaad birrif leedahayd suuliya musqul aadi karta wuu tirsan yahay xilligaad soo yar jireen waa tirsan yahay xilligaad shaqada ka rawixina waa tirsan yahay markaad soo gasha waad saxiixi markaad baxaysana waad saxiixi maxor baa tahay saad gurigeena u joogteed banooni ciyaaraysa iskuul ha lagu geeyo fiigaasaad bixin saacadaasaad soo xaadir saacadaasaad rawixi sidaa ma samayn kartid waxaa ma qaadi kartid cashar dheer baa kuu yaalla gabar bay bannaan iska joogtay ahaydee reer bay noqotay gurigaasaa joogtaa intaasaa lagaa rabaa waxaasaa lagaa rabaa waxaa ma samayn kartid waxaa ma samayn kartid amar baa ku bilaaban gabadhii shalay xorta firiiga ahayd saa ha yeeli saa ma yeeli kartid durbo waxay leedahay meeshaan soo gashay gumaysi baad soo gashay meel addoonsiya baad soo gashay qub iyo qac ninkii shalay haddii uu qado u baahda saaxiibbii iskala qadayn jiray iskala soo cashayn jiray dee xaafad baa casho looga talagalee meel kale wax kama soo cuni karo isna wuu xoogay
caburis iyo in lugaha laga xidhay uu dareemi saaxiibadii baa ku dhihi raggu markaad tiraahdo war anugu xaafad baan casho ku leeyahay kuwa xarig lama sitaana kula xiriira oon waxba dan ka lahayn xuquuq baa kugu waajibtay qof baa dab galay raashin baa xoolaha khasaaraya garaan xilliyada hore caruur cunaysa ma jirto guriga raashinka hadduu ninkii ma waayo waa in la daadiyaa xoolaha khasaaraya dad baa rafaadaya dad bay moraalkooda xu dhimaysaa rag baa hareeraha ka gelayo markii hal casheeyo la yiraahdo uu yiraahdo ma xaafadaan tagaya ma qadada tagaya war kan waa la qabaa inaga daaya leeyahay war kan waa laga adag yahay naga daaya kan misaas dhaqaajin karaba rumuud baa lagu maamulay isna markaas uu leeyahay xorow uu leeyahay qoorta la isla galaya cunadan kugu dhadhamin miya ha meelkaada ka soo cashaysay tan aad reer maxadabka noo gelinaysay halka waxa ka imanaya dadaan xuquuqda iyo waajibaadka reerka aqoon gabadhu waajibkeeda ma taqaan ninkuna waajibkiisa ma yaqaan wadada laamiga gawaarida maraysa haday dhowr darawal gawaari kaxeeyaan oo xeerka jidka aqoonin oo soo baran soo food isla wada galaan ma kii baasay jackshanka kii hor lahaa ma yaqaanaan rawra boodka kii hor gelin lahaa iyo kii istaagi lahaa ma yaqaano markuu socdahaadka uu leeyahay meeshuu ka leexan ma yaqaano wadaduna gaari ku kaxeeyay boqol inuu saaraa laga yaabaa waa shil badan inuu sababa xaafada shilkeedu waa nin iyo naagis qaba oon xuquuqda iyo waajibaadkooda aqoon isku dhaca badanaya marka gaarigu hadduu shilkiisu bato marka dambe right off uu noqdaa waa la tuuraa qoyskana shilku markuu noqdaa bataay waa la kala haadaa kalsoonida lunta qayrada badata dagaalka bata gurigii meel lagu nasan waayo noqdaa hawaad gabadhuna ninkii markuu soo socdo balaayi baa soo socotay ninkuna guriga markuu ku soo socdo sharmadadii baa u socotaa buu dhigtay qaylada badnayd sadarta Soomaalidu waxay yiraahdaan nin dagaal badnaa baa qabiil intii la jabin jireen la soo ceyrsaday ba orad lagu gaari waayay ilaa uu reerkii kor yimid gurigii markuu kor yimid buu istaagay isagoo taagan baa la qabtay nin oday wuxuu yiri war ninkii inta aan gaari weynay guriga korkiisa aan ku qabanay isagoo taagan bala waraysanna waxa istaajiyay markii la waysto xilli islaam qayliya dagaal badan baan qabaayo waxaan irigu intaada guriga gelin horta bal qayliya dagaal dhageyso inta xaggana mashquulisay cadawgii daba socday waa ka mashquulay raggu qaar baa ku imanaya marar badan wuxuu leeyahay saan u faraxsanahay markaan guriga ku sii socdo baa waran la gelin falaarin baa la iga taagay gurigiiba wuxuu ku noqday tagitaankiisa iyadiiba balaayo saas darteed Soomaalidu reerka khilaafka badan ee isku dhacdhaca waxay ka cabireen hadii sida xun loo fasiro nin iyo naagti waxay dhaheen calna maaha nabadna maaha heshiisna maaha calna maaha colaad kala tagayna ma hodan baa isku qabatay nabad iyo wanaagna lagu wada joogo marka reer wada garaafeysano wala geeska kaga nabar kaga yaalo sidii gaariga sheelka badan galaya hadii uu bata reerka inuu burburo waa dabiici kalsoonida allumi deganaanshihi baa allumi qayla iyo sawaxan baa la noqon wax kasto midkood sameeyo sida ugu xun baa loo fasiri sida ugu xun baa loo dhigi taasina waa qayb labaad Soomaalida waxa uu gaar ah intaan arkay qayb saddexaad oo reeraha dumis oo dhihi karo waa faragelinta qoyska qaraabada labada qoys iyo waalidku iyo qaraabadu qoysaska in badan bay dumiyaan markay haweenku noo soo dacwoodaan ninka hooyadii iyo aabihii bay aad uga sheegtaan gaar ahaan hooyada ninkan reerka ma maamulo hooyadii baa saa yeeshay walaasii baa saa ii tiri walaalkii baa saa yiri saa darteed gabadha Soomaaliyeed ninka reerkooda cuqdad bay ka qabtaa marka la soo dardaarmayo sodoh baas baa la dhihi habartii baas saa darteed hooyada Soomaaliyeed wiilkeeda gurigiisa inay timaado iyada lafteedu sas bay qabtaa haddii wax yar dhaco waxaa lagu dheebeelay habartii baa kala caydhisay balay qabtada inkaar qabtadahay Soomaalidu ku aragteen habar khayr qabta markay ka sheekeynayaan habar inkaar iyo balay qabta u baatay adigii wax dhalay soo koriyay hooyadu waxayna ka deynayeen waxay dhibsata haday aragtaa ma waxay rabtaa ay weydo way hadli waxbay faragelin rabbuna sodoh bay ka qabaan sas waxay dhigi jireen odayaashii horan ka soo gaaray markaad gabar shukaansanayso guursanayso waxaad ku tiraahdaa hooyo ma leedahay ha haday ku tiraahdaa hadal dambe ku cilin isaga tag haday ku tiraahdaa maya oo way dhimatay gurigay ku dhimatay ma garan dheh baa leeyahay
hadday ku tiraahdo haa ka tag waxun baa ka soo gaari hadday ku tiraahdo meesha ku dhibatay garan maayo yeena ku dhaafin maxaa laga turjumayaa hooy sodoh faragelinteed baa reerka dhib badan ku haysa haddaba gabadhiina hadday ninka hooyadii iyo reerkooda ka shaki qabto ninkuna gabadha hooyadeeda iyo reerkooda uu ka shaki qabaaye lana soo kala dhaxlayo ha laga badbadiyo laakiin dhib qoyska ka socdaa jira dhibkaa qoyska ka socdaay kiya doorasha anigu soo socota hadda 5 case baan marayaa intaan galay reer isku khilaafay ninkii oo doorasho ku jira iyo gabadha qaraabadeeda doorasho ku jirta isqabtay ama nimanka reer qaraabada iyo siyaasadda say rabaan u yeel ama waan kala tagaynaa bay istaagtay iyadana waxa lagu yiri dhayaa ninkan la hadal ama sidaas ku wadani reerka faragelin yurub waxaan ku arki jiray intaan joogay kaysas badan waxaan galay telefoon hebla reerkii bil ma soo dirtid allah iyo aabo waxa ma hayo na gaaliye gaasho dhashay baa leeyahay hebla soo dirtay de kuwaasi maxaan sameeyaa nayaa sabreed noqo ninka cayl carruurta kaliya waxa lagu siiyo intaasoo gabdhood haweenoo dacwoonaya noo iman jiray ma aabbaha iyo hooyaday baan diidaa mise reerkan aan ninka buriyaayo reerkii baan dumiyaa tii halkanna way ka jirtaa ragga Soomaaliyeed waxay dhahaan gabar Soomaaliyeed waa safiir kula degan safiirka wadamada jooga Kenya jooga muxuu ka shaqeeyaa danta wadankiisii buu Kenya ka dhaxayaa waxa la gabadhu maanta oo dhan ilmihiina kaala hadli mayso maxay noo soo kordhanay kaala hadli mayse aabahay maxaa la siiyay walaalkay maxaa loo taray adeerkay baa waxa raba ina abtigay baa sida yiri hadii la diidana waa qub iyo qacya dagaal reerkayagii waa qaaraan ururinaya markii taa loo fasiro sida diblomaasiyadda soo safiir iyo qunsulun ma meesha dhinaca kalena ninkii reerkoodiina waxbay ka labayaan gabadha reerkoodiina way labayaan way qasayaan gabadh baa la guursanaya reer baa la keenaya ninka hooyadii inay maamushay rabtaa oo walaashii baa rabtaa inay maamusho oo walaalkii baa rabaa inuu maamulo oo aabihii baa rabaa inuu maamulo gabadhani nin bay ogolaatay reerkoodiina maamulka ku ogaayeene 10 kan maamul saydhihi erya dhul xageygay makana yeesha lidalika waxaan maqli jiray odayaashu iyagoo leh ninka dhowr arrimood hadday xaasku kaga dacwooto way ka garheshaa waxaa ka mid ah wuu caayaa waa gar aan xaal mooyeen xal lahayn isagu ima maamulo oo dad kale ada maamulka hayo isagiiba taladaydu isagu ma laha waalidkan ninku ka dhashay faragelin badan bay qoyska Soomaalida ku hayaan gabadha reerkooduna qas iyo walaaq badan bay ku hayaan waxay halmaansan yihiin waalidka gabadha dhalay gabadhoodii bay ahayd gurigoodii bay joogtay iyaga maamulayay taladooday ku socotay maalin bay xaflad dhigeen xoolaa la qalay cunaa la kariyay iyagoo faraxsan oo alalaasaya bay gabadhii nin u guuriyeen dheheen nagala wareeg wili haddana faraqay maamulkii ku sii haystaan sahayeeli saayel maxaa loo yeeri warsoo idinkii xafladda u dhigay gabadha xilkeeda wareejiyay maxaa faraq u sii haysataan ugu dhagantiin marka qoyska Soomaaliyeed duwitaankiisa guda iyo dibadba qayb waxa ka ah xigtada iyo qaraabada Yurub waxaan ku arki jiray abti baa la soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo ina abti baa soo hadlay adeer baa soo hadlay dadkan cayd baa la siiyaa cayd noloshooda ay ku jaan go'aanta markii $200 soo diraan bishoo dhamaanin baa biilku ka go'aa dadka Yurub joogeen maqlaysaan boqolkiiba 90 biilku ka dhamaadaa markii $100 ay soo diraan xagee ka keenan inta badan dadka biilka cayd la siiya waxa lagu daraa habeenaha axadda ah inay kalaabyada aadaan waxay ku aadi lahaayeen carruurtana waxba la siiyaa in meel loo yar dhigo hadhow jaamacada lagaga bixiyo ama dalxiisyo lagu geeyaa dalxiisna ma geeyaan kalaabna ma aadaanay intii bay qaraabada u soo diraan intii yaray abti baa soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo abti baa soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo hooyaa soo hadashay oo aab baa soo hadlay oo awow baa soo hadlay ayay ashyaa loo diraa inta xagga gabadha markay ka soo hadashay inta laga xagga aabahay ka soo hadashay
reerkiina caydhaasaa la qaataay oo u dhaxaysa sabreed ha la galo ha la isku laayo kana loo diri maayo reerka iyaga ma rabtid ka iyagaa diidan tahay dagaalka qoyska wastareenka jooga 70% wuu burburay waxaasaana burburiyey 70% 40 ka mid ah waa qaraabada banaanka ka soo wacaysa ee telefoonada meesha ka diraysa mid biilkaasi wallaahi dab laba shirin buu kule u dharagsan yahay bal idan qaaday abaaraha waxaan wada balaayana ilaahay la weydiisanayaa ka mid ah saas darteed qaraabadu faragelintay ku haysaay haddayna ka daynin reerka waxaa loogu talagalay xigtaa tahay reerkan waa dhisan yahay amar ma lihid wixii kuu go'i kara ka qaado iyaguna waxay awoodaan silatu raxima ku sameeyaan laakiin geedkan la harsanaya ha dumin waxa wax loo soo doonanayo ay qaraabana soo martiyaysa waa inta ay jiraan soomaalidu inta ay jiraan intii baa la duminayaa iyagiina waa la kala dirayaa wixii laga helayena kadib waa la waayayaa saas darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo faragelinta qaraabadu waa khatar badan oo qoyska soomaaliyeed haysata qaybo badan mujtamacaadka muslimka ina lama qabaan qodobkaas reerka degan ee qaraabada ah faraha laga qaada wixii ay u tari karaan dadkoodana way u taraan faragelinta iyo dhexgalkana ha laga daayo oo waxaan saa u leeyahay hadalkaa ugu celcelinayaa inta da'yartaa inta ay muuqataay berri waalid bay noqon laakiin inta waalidkaad u badan tihiin gabdhihiinna haddaad guurisaan ama wiilashiinnu gabdho guursadaan faragelinta iyo wax ka maamulka iyo gacmogacmaynta iyo culayska ka daaya berri markay muddo joogaan ee reerkii si fiican u dhaqmaan iyagaabaad midhahooda goosan doontaan bini aadamkuna wax weydiisiga badan iyo dhexgalka badan wuu kugu nacaa haddaad waalidkii aad ka daysaan arrintaas iyagaa idin jeclaan oo idin soo raadin doona haddii laakiin aad lugta ku walaaqdaan dee iyagana waa duminaysaa idin wax ka dheefi maysaan waxaa ka mid a sababaha reeraha dumiya kala maqnaanshaha badan reeraha halkan degan raggiina yurub iyo maraykan iyo australia jiraan qaar meelaha iyo south africa u xamaal tageen 4 sano uu maqan yahay 5 sano uu maqan yahay 6 sano uu maqan yahay markuu roonaadee dadaala biil buu soo diraa islaaniya ilmo meeshan jooga qaarna halkan ay joogaan islaamihii caruurihiina westereenkaasaa la geeyey sponsoradiina way adkaadeen ama meelahan aan ka xamaalanayaa buu leeyahay aniga mid baa siyaasad ku jira mid baa xamaal ku mashquulsan mid baa qaad iyo meelo balwada u xereeyey mid bay isu qaban laaday fiisihii sponsorkii uu ku tegi lahaa haddana dee intii maraykan laga jirayey ama rag ka jiray ama dumar ka jirayo intii dambana hadda nin taraam la yidhahdaa u dacaleeyo albaabadii xiray soo maaha waa la kala maqan yahay raggii markaad la hadasho wuxuu ku leeyahy maxaa dhibaho jira biilka waan soo diraaye oo gabadhani ma gurigooda waxay cuntay ka weyday gabadhani markay reer guursanaysay reer yeelanaysay ma waxay xidhatay weyday ma waxay cuntay weyday ma meelay seexatay weyday waxaan ku yidhahdaa warniyahow gabadhani ma gaajaad maxaad ka soo saartay meel qabri iyo gaajo on wax la cuno lahayn ma meelay seexatay weyday oo jidkaad ka soo kaxaysay oo joqoray ahayd qofkani reer bay u baahan tahay nin bay u baahan tahay ubad bay u baahan tahay dareen iyo baahi bay leedahay saa darteed waxaa nagu badan warkaygaa si fiican u dhegaysta dumarka laga maqan yahay ee dad kaloo jooga la xiriiraa nagu badan su-aalaha brivatka noogu imanaya iyo telefoonada annownka ah ee brivatka ama brivatka nagu soo wacaya ee khaladkaasaan galee rag iyo dumar leh tira ma laha meel kale aadin magaaladeena Nairobi way ku badan tahay inta nin kule nin maqan baan reerka u sii hayaa ama gabar leh de ninkii waa muddo iga maqnaayo waan daqaqabay dad xun baan bartay leh aad bay noogu badan tahay tira yar maaha dad magaalo jooga oo caafimaad haysta oo calooshu u buuxdo oo waxaa social media iyo internetka iyo waxaa badan ee ka socda arkaya oo telefishinka waxaa ka socda arkaya oo intaas reere ag degan yihiin oo intaasoo durbaano aroosa laga reerahoodii iyo dushooda laga garaacayo qof insaanka iyo dareen iyo shahwale maxay u guursanayeen qofkaasoo dareen shahwo lahayn markii intaa la sameeyo sanad la maqnaada 2 la maqnaada 3 la maqnaada 5 la maqnaada 6 la maqnaada 10 la maqnaadaay waa la kala abaadayaa
qoyskii shakwadii iyo qayladii iyo buuqii iyo rabshadii way badanaysaa kadibna dhuxdhux baa soo baxayso tuhumkii iyo dad kalaa lugaha lagula jiraa baa badanaysa kala maqnaanshahan badani dee wixii la isu guursaday xuquuqdii waa ku lumaysa qoysku wuxuu noqonayaa magac aan manfaco lahayn gabadha hadda halkan joogta ee ilmiya laba haysata ee 6 sano laga maqan yahay guurku dee waa magac manfaco ma laha marka dib waxay door bidayaan haweenkii ama xagga joogay ama halkan joogay ninkii luuq iyo qodba sira iyo mid la qarsaduu la daba wareegaya gabadha laba khiyaaran baa u furan inay reerkii dumiso mid kala raadsato iyo inay xaaraan ku dhacdo inna xaaraan bay geli reer dumi waxba kama duwana inna si toos ay reerka u dumin waxay inta carab da'baan gaaraya waqti baa igu socda baahi baan leeyahay ha idaaya waa gar laakiin qurbaha uu la kala yaacay la kala maqan yahay ee qaar badan oo san cudurdaar lahayn qoyska khataraha duminaya khatarta badan bay kamid tahay waxa kamid ah isleeyahay aan ku soo gabagabeynaya waqtiga waa dhamaaday social media kamid ah bahalaha xunxunka ah ee gacanta iyo jeebka lagu wada wato baa kamid ah wax reerka duminaya dumitay duminayaan laba tusaale ka soo qaato kow wixii la qaban lahaaba dadkii kana mashquuliyay gabadhii hawshii loo tiilay ma baaha inta digsi gubanaya inta ilmo dayacmaya inta iskuul laga daahayo inta home baa la akhrin lahaa aan la fiirinaynin kana saa loogu maamayo waa lagu mashquulsan yahay ninkii waa ku mashquulsan yahay iyo dantu waajibkiina waa laga mashquulay iyagiina waa kala mashquuleen labadiis qabay oo subaxii baa la kala kalahay fiidkii baa la isu yimid maxaa maanta dhacay inta la iswaraysan lahaa ee waqti la wada qaadan lahaa iyadina way mashquulsan tahay ma joogto isagana waa mashquulsan ma joogo labadan qof marka habeen iyo maalin runtii ma wada joogaan way kala maqan yihiin laakiin inta habeenkii iyo subax hore muuqaalkoodu wada joogaan marka la sii seexanayo mid walba telefoon nalkiisu baxayo nalalkii la damiyo sare la jiifo buu dhinac ula sii jeedaa iyadina mid bay la sii jeedaa haddana waxaa la yidhi gunti xun inuu wax qarsanayaa la moodaa bay dhahaan markuu meeshan kuuso meeshanna kuusanto halkanna macawistii laalaabay kuusan tahay dad mobaylkiina markuu qof walba saa isla dhaho midoo mid kale uu tuumayo muxuu qarsanayaa buu leeyahay waduu kaala dhuumanayaa nin gunti xun buu qarsanayaa la moodaa mobaylkiina waa la mashquulay waajibeedkii saaraa gabadhii way ka mashquushay kii rabbi baa laga mashquulo haddii qur-aan la akhrisan lahaa haddii dikri la akhrisan lahaa haddii salaad la tukan lahaa waa laga mashquulay kii gurigii iyo ilmihii waa laga mashquulay waxaad arkaysaa ilmo ooyayo xafaayad ku jira hooyadii ii kaadi dhowr maasaj inay qortay rabtaa marka ama dhowr maasaj akhrido waqti uma hayso digsigaa dabka saaran dushiisaa lagu haystaa marar badan bay cunnadu xumaan ama dab buli bahalkaa darti marti waxaan aragnay xaafado marti joogto oo cunnadii iyo wixii loo keeni lahaa qayb markii la keenay qaybta kale maasaj lagaga mashquulay marti raashin loo keenoo faradhaqi maasaj lagaga mashquulay maxaad sugaysaan oo saa una hogamaysa gacmihii maxay ku faradhaqaan hebla haye waan soo socdaa dhowr maasaj bay rabtaa inay dirto ninkii waa la mid bahalkan waa la kala mashquulay kow waajibaadkiina waa laga mashquulay dagaal badan buu kadibna qofka maqan baa ka muhiimsan qofka joogu telefoonku ina baray 4 mis wada fadhidood shir isugu timid oo mid walba telefoon ku hadlayo iyagii waqti isula shir kasta hadda ku jirtaan hawl kastoo muhiim ah lahayn bahalka haduu soo dhaco qofkii isagoo buu qaadi waxaan ku matalaano ilma caruura haddaad guriga qaybta town house-ka haddaad kor saarantaho telefoonka hoos ka dhawaaqo ilmo hoos ka ooyayo jaqaaqayda kama duwanoo orod baad ku soo degi haddaan hadda kan jeelka geliyo ilmo busta lagu daday baad moodiyo inay neeftu ku noqoto aan ka baqayo waxoogay markaan joogaba sidan aan dhihi waan soo bixinoo waan feerin ilmaan ka dheefinaya garan maayo marka waa lagu mashquulay waxaa dheer sheekooyin aan loo baahnayna waa la bartay gabadhii intaasoo qolay la sheekaysanaysaa ee la doodaysaa ninkiina intaasuu la sheekaysanayaa
telefoonadii kuwa WhatsApp kuu soo dira iyo kuwa imo ama Viber kuu soo dira iyo kuwa Facebook kuu soo galaba qof walba sawir baa u saaran gabadhii ninkii telefoonkiisa markay saa u qoraansato intaasoo gabdhood sawir oo la xiriirayay arki big ninkiina markuu saa u fiiriyo telefoonkeeda intaasoo nin oo sawirkoodii u saaran buu arki haddii galeriga la taabtana ninkiina gabdho qurqurux badan baa ugu jira gabadhiina niman qurqurux badan baa ugu jira gaalka ama gaashu kuwaasay la sheekaysataa ama la sheekaystaa soo maaha waa la kala shaki waa la iswada tuhmi sheekooyin qoran hadda ma hadlaya ka rabaa inaan ka hadla telefoonkee dabcan wax badan baa ku jiri karee telefoonka laftiisu qaab dhaqan buu leeyahay anshax wanaagsano dee dhibkiisii iyo reerkeena u dumiya looga ilaaliya taa hadda maaha laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo gabadhii ninkii wuu la hadlayaa qolyo kaley aada ugu mirqaansan tahay shaki iyo tuhum buu qaadayaa ninkii gabadhii way la hadlaysaa maantoo dhan buu maqnaa hadduu soo galay qolyo kaluu aada ugu mirqaansan yahay qaar dumaraa ka mid noqon bale kaley tuumaysaa qacda inta aan xaalado talaaq iyo furitaan iyo reer dubayo social media aan gacanta ku hayna ama na soo martana tira ma laha dee telefoonka mid baan garan waayay anigu akhyaare telefoonka maantoo dhan da'yartu waa la iska shukaansanaya marka la isguursadana isagii baa guriga duminaya wixii isaga laga dhex raadiyey isagii baa duminaya isaga laga dhex raadiyey waa la iska dhexelay aan dhahno reer baa la noqday dhexdiisaa lagu sii jiray kiibuu dumiyey mid kale laga kala dhexdhisay isagii baa dumiyey mid kale laga dhexdhisay isagii baa dumiyey wuxuu noqday weel daba bannaan xaggaad ka soo geli xaggaad ka bixi reer social media laga dhisayna inta badan social media dumiya waxaana waqtiga ku dhammaadaan u malaynayaa inta aan kaga haro intaasi waa qaybo ka mida khatartiina haysato inaan ka feejignaana u baahan raalli hada waa idinku dheereeya mahadsantii jazakum allah khayr assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا خير الجزاء شيخنا الفاضل شيخ محمد شبلي وحفظه الله تبارك وتعالى سؤاله آد بأبدين لكن إن شاء الله تعالى أنت يعني كقدنا وحن ربينا سو ختمنا دورة دينا كود ودمن 8 دقيقة إن شاء الله تعالى ما دام أي ماشي رجل الله تعالى قلي وحيلها سائلة السلام عليكم شيخ هو يدي ولي ما أركين دتكنا كما أقاني كما قرنا يوم haddana cudurdaar ayaan ugu tegi karin maxaan samayn karaa alxamdulilah طبعا xiriirinta waalidka la xiriiriya tegitaanku waa ka mid laakiin keligeed maaha waajibku qofku wuxuu waajib fuulaa wixii uu kari karo cibaadadii ilaahay ee ka weyna waalidka ayaa waxaa waajiba wixii aad awoodo walaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa haddii dee aadan weligaa arag haddana duruuf aadan arki karin saddexdaba ugu dadaal kow xiriirka telefoonka haddaad meel aad ka heli karta ay joogto ugu dadaal oo qofka aada bariidiso oo tiraahda sidee tahay haddaad adiguna awoodda hadba intaad kari karta awoodda kharashka dhaqaalaha iyo telefoonku dee intay ku jiraanan garanayn ama aad telefoon ku heli karta dee halka ay joogto meel telefoon laga heli kara haddii ay tahay haddaadan telefoonka heli karin bedelkiisii oo meel aynan joogin dadka socda inaad fariin u farto inaad marba waraaq salaana u dirto arrintaas salaanta iyo xidhiirinta afka iyo bariidada ugu dadaal midda labaad ixsaankaaga wixii aad dhaqaalo iyo taakulayn u heli karto inay baahan tahay qasab ma aha waxaa la ysa siiyaay marna baahi baa la ysu siiyaa marna xurmaa la ysu siiyaa wixii aad kari karto inaad ku dhaqaalayso ku xurmayso ku taakulaysato ku xasuusato hadiyadaha qof markuu meel ka yimaado kuu keeno macnaheed inaad baahan tahay maaha waxa laguu keenayna qalin baa laga yaabaa inuu noqdo qof baa qalin kuu keenaya qalin dee afar hareeraha uu ka buuxayo khaanadihi jeebku kaaga buuxa laakiin waxa wax ku taraya waxa laguu keenay maaha laakiin xasuusta qofku ku xasuustay baa wax weyne taa weeye ta macnaha qiimaha samaynaysa marka waalidka wuxuu dirkii hadiyadihii taakulayntii markuu baahan yahay wuxuu qabadkiisa ku dadaal midda saddexaadna ducada ugu dadaal ilaahay inuu naxariisto ilaahay inuu caafiyo ilaahay inuu jannada geeyo ilaahay khaatumadeenu u suubiyo
ilaahay wanaag inuu dhaxal siiyo ilaahay dembigeeda inuu dhaafo iyadana ducada ilaahay inuu siiyana ugu dadaal intaaba adiguna ajir baad ka heli ducadana malag baa ku dhihi adna ilaahay soka allah ku siiyo wixii aad siisay sadaqatun wasila laba ajir bay leedahay waalidka aad ku xiriirisay wixii aad eraygii wanaagsanaaye tirna sadaqu kuu noqon marka waa laba marna waa ajir marna waa wanaag adduunyada billahi tawfiiq jazaak allahu khayran khayr aljazaa su-aasha labaad waxay leedahay gabadhan sheekh waxaa jirta arrin kusoo korodhay gabdhaha wadaadada ah marka ay dhoofayaan waxay tuuraan dharkoodii ay xijaabada ahaa marka dee maxay xidhaan dhar model cusub alxamdulilah dabcan dharka la xiranayay ku xiranta xijaabka sharciga ahi marar badanna waa niri midab gaara ma laha muuqaal gaarana ma laha model gaarana ma laha xijaabka sharcigiihi waa dhar tilmaamihii sharciga leh intii loo baahnaana asturaya waa dhar aan khafiif ahayn oo waxa ka shisheeya jirka ka sheeya aanu muuqanaynin waa dharaan aada ugu dhagalayn oo jirka iyo xubnihii uu saaraa aan sawir ka bixinaynin waa dhar aan ka yarayn intii la rabay in la asturaya wey inaha aasaas dharka u yahay haddii laga helo ama xijaab ku magacaaba idinku curfigiinna ama jilbaab ku magacaabo ama go iyo garbisaar dhaha waa asturaad sharcigu waa xijaab walidaalika xilliga nabi calaih salaam go ay isku duubeen baa gabdhaha asturaad iyo xijaab u ahaan jiray xadiiku halku ka aragteen go-yaashoodii way isku mutalaficaatin bimuruutihinna marka waxaan saas u leeyahay waxaan ka baqayaa xijaabka iska tuuraantu way isqaawiyeen inaynan ahayn baa dhici karta oo xijaabkii dhar gaar iyo disaynka soomaalidu xirata keliya aad u taqaanaana qofkii sharci ahaan isagoo asturan maryo gaaroo nooc gaaroo model gaaroo iska dhigay model maryo kala xirtay sharcigu dembi kuma aha haddii asturaadii sharciga la ilaaliyo marka masaladaas akhyaaray een idinka hoos bixin sharcigu aan ku celiyo midab gaara ma laha xijaabka sharcigu model gaarana maaha magac gaarana ma laha asturaadii sharciga shuruudda dhar badan baa buuxin kara dharka buuxiyoo dhan waa xijaab sharciga gabadhu xijaabka sharciga inay dhigto ay tuurtaay waa xaaraan iyo dembi hadday xijaabkii asturaadii sharciga ilaalinaysana dhar iyo modeel gaaro iska dhigtay dembi maaha marka ilaahayna cabsidiisana ha la ilaaliyo dadkuna wixii xuduudda cabsidii ilaahay hadday ilaaliyaan wixii adigu si mar kastoo uu asturaadu wanaagsan yahay buu sii wanaagsan yahay laakiin wax kastoo sii wanaagsan waajib ma wada aha waajib iyo sunno waxaa looga dhigay afarta ragcadooda duhurku waa waajib sunnada ka horeysa iyo ka dambaysana way sii wanaagsan tahay qofkii ka tagana ma dambaabin saas darteed wanaaggaana aan ku dadaalno qofkii inta waajibka ilaaliyana waxba dembi ma geline isna yaan la dambaajin yaanan laguna dambaabin gabdhuhuna xijaabka iyo asturaadda sharcigaana yaanay ka tegin oo ilaahay ha ka cabsadaan innaguna hadday ilaaliyeen waxba yaynaan ku tiigan oo dhaleecayn billahi tawfiiq jazaa allahu khayran khayr jazaa sheekhana gabadhan waxay leedahay waxaa jira barnaamij laga sii daayo tawasul ijtimaaci ama social media si mubaashir oo live ah gabdhaha ducaadda qaarkood baa halkaa duruus ka bixiya xisaabaadkooda gaarka ah rag baa mutaabaceeya oo duruustaa daawada iyaduna live bay video ka muuqanaysaa arrinkaa diinteeda wax dhib ma u keeni karaa alxamdulilah ayada maya laakiin ninkaa la rabaa indhihiisa inuu xukumo waxaan rabaa inaan idhaahdo gabdhuhu codkoodu haddaynan iyagu ka dhigin dembi maaha cawrana maaha ilahina wuxuu yihi walaa takhdacna bilqowli ereyga si khaldan oo dabcasan ha u dhihina fayamaca aladii fii qalbihi marad hadlina lama dhihin gabdhuhu waxna waa soo talana waa soo jeedin karaan diin iyo waxbarisna waa soo jeedin karaan ummahaatulmuminiina banaankaa laga weydiin jiray oo axaadiid iyo wax badan lagaga wariyey marka ereyga si wanaagsan iyo anshaxa hadday ilaaliso gabadhu adduun iyo aakhiraba wax wanaagsan kow dadka waa u sheegi kartaa marka labaad gabadhu walow khilaaf ka jira laakiin sida aniga saxda ila aha indha shareerku waajibku maaha bimacnaa suuqa jidkay mari kartaa meherad iyo ganacsi bay samaysan kartaa
hadday jidka marayso sharcigu ma dhihin waa lagu arkiya jidka maxaad u mari hadday meherad iyo dukaan gadanayso meel ka shaqaynaysana maxaad meheraddaa u gadaysaa muuqaalkaagaa la arki lama dhihin laakiin raggaa waxaa la yidhi yaquduu min absaarihim markii jidka nabiga cala slam uu fadl ibn cabaas la saaran yahay ay xajkii gabari weydiinaysay nabiga fadl u aada u fiiriyey nabigu gabadha uma dhihin maxaad iya weydiinaysaa usoo istaagtaye fadl ibn cabaas buu dhabanka qabtay oo leexiyey calina wuxuu ku yihi yaa caliyu laa tutbici nadrata nadra fa inamaa laka alulaa walaysat laka ahaaniya waxaa la ogolyahay sharciga dukaan intaad ugu timaado inaad wax ka iibsato macaamil baa idin dhex mari kara jidkaad isku salaami kartaan waxaadba jidkay mari kartaa hadday ama meel xisaab gaar ay leedahay wax ka jeedisa iyadoo anshax iyo asturaad iyo ereyga wanaagsan ilaalinaysa ama meel muuqaala ay ka soo baxda ama codkeedu waxshee ka soo baxaay hadday codka khaladana way dambaabi anshax iyo asturaadii hadday ilaalin weydana way dambaabi intaa wixii ka dambeeyana dee ninkaan la rabaa indhihiisi inuu laaba sida jidka markay kaga hor timaado iyo markuu meesha meherada ugu yimaada xaddii daruuro aan ahayn dee raggaa yaqudu min absaarihim laga rabaa wabilahi towfiiq jazaak allahu khayran su-aashan xigta gabadhan waxay sheekh haddii aan maherkeyga ka dhigto xoolo sida geela oo kale horta ma ii ansaxayaa hadduu ii ansaxana qiimaha geela hadduu waa hore ahaa maxaan ku qiimeeyaa hadduu geelu hoos u dhaco iyo hadduu geelu kor qiimihiisu aadaba qiimahebaa meherkeeda lagu siinayaa alxamdulilah horta geel iyo ari waad ka dhigan kartaa iyo haddaad rabta digaagna waad ka dhigan kartaa waxaa adigu doonto haddii nabigu ninku yidhi iltamis walow khaataman min xadiidin faraati biraba ha noqdee waxu keen waxa laalay wixii xoolo nool iyo mood waxa laalay waxaad ku heshiisaan baad meher ka dhigan kartaa yaraan iyo badnaan inaan la badin baa fiican laakiin haddaad ku heshiisaan wa ataytum ixdaahunna qintaara waa geel iyo xoolo nool hadduu ahaa maxaa la igu qiimayn maalintaad meherkaaga qaadanayso suuqa wuxuu ka joogaad leedahay nasiibka hadduu qaali korku ugu kaco iyo hadduu hoos joogaba qiimo go-an ma jiro adigu geel baad leedahay haddaad geel adu ka dhigatay maalinkaad qaadanayso haddaad wada qaadanaysana waa lagu wada qiimayn haddaad tiraahda 10kii geel ahaa hal mid baan rabaana hal mid qiimihii baa lagu siin 9ka kale geel bay ku ahaan waxaad rabtana waad cafin kartaa waxaad rabtana xooluhu meesha ay qiimaha ay joogaan haddayna magaaladu suuq lahayn suuqa u dhow baa lagugu qiimayn hadda saasaad ugu qiimeynee qiimo kaloo go-an ma jiro maalinkaad kala qaadanaysaan qiimaha suuqa waad ku kala baxaysaan idinku haddaad qiimo gaara ku heshiisaan waad samayn kartaan isagoo suuqa 1,000 ka jooga haddaad 2,000 ku heshiisaan ama isagoo 100,000 jooga aad 5,000 ku heshiisaan idinkaa khiyaar u leh soo adigu badeecadaada waxaad rabta ma geli kartid oo xoolahaagii qiimaha halkaa ku garan kartaa qiimihii suuqa haddii lagu sheegay ima anfacaad dhahdo waayo sugdaysaa lagu leeyahay geel halii soo xaray haddaad tirahda waa lagu soo xarayn billahi tawfiiq jazaak allahu khayran sheekhana gabadhani waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullah su-aasheedu waxa weeye haddii ay gabadhu rabto inay wax barato ninkeedan aanu raalli ka ahayn uuna ku marmarsiyoonayo ilmaha ayaa dayacmaya iyadoo taasina aanay waxba ka jirin isaguna aan aqoon badna diinta u lahayn sheekh maxaan sameeyaa alxamdulilah waa lagu yaqaan waxbarashadu waa laba inna waa waajib inna waa sunno inna waa waajibkii rabbi ay ku caabudi lahayd xalaal iyo xaraam ku garagaran lahayd asaaskii inay baranayso say u tukataa say u soomtaa sidee bay u tahaaro qaadataa iyo wixii la mid ahaa intaa waajibkaa barashadeedu idan uma baahna si aadan u weydiinaynin salaada ma tukadaa yaan ma bartaana loo weydiinaynin isna xaquma laha inuu farageliyo wixii intaa ka baxsan ee sunno ah xuquuqda waajibaadka guriga iyo dhisnaanshihiisa iyo jiritaanka iyo ismaqalka mudnaanta kale laakiin wixii oo dhanba hadda waa laga maarmay in badan oo kamid a waxaad baran lahaydba maqal iyo muuqaal baad guriga ka heli inta badan intaasoo video haddii soon la baranayo haddii salaad la baranayo haddii kitaab la akhrisanayo maqal iyo muuqaal inta majmuucaadka meelaha ku jira cashiro layfa laga jeedinayo hadda maraykanka oo kale iyo canada waxaa ka jira system telephone baa ka jira oo guryahoo dhan ku jira halkan waxaa laleeyahay telefoon baa muxaadara iyo cashir lagu jeedinayaa
gabar walba gurigeeday samaacadda furan ay ka dhagaysan su-aasheedana ka dhiiban tiknolojiyadan hadda wax badan bay fududaysay laakiin gabdhuhu halkaas mid bay ku khaldamaan waxay ku khaldamaan waxay gurigii ku baran karta gurigii inay dumiso haddii gurigii iyo reerkii iyo ilmihii waxaad gudihii ku baran kartaa aada u dumiso ma faa'iida mise khasaare khasaare wey reeraha yaan loo duminin waxaad guriga ku samaysan kartaan marka koowaad marka labaadna dumarow markaad dan gaara leedihiin odayaashiina saad uga dhamaysataan waa taqaanaan markii diinta rabbi la rabo dariiqaad kaga dhamaysan jirteen kaga dhamaysta dagaal iyada ha ka dhigina dee shalayba waxaa gabar weydiisay maamo dadka soomaalida ganacsadaa wey China iyo Singapore iyo South Africa iyo u safartaa waxay tiri cumraan rabaa inaan aado cumraan rabaa inaan aado ninna malihi mahram qaraabana ima joogo contract nin baan rabaa inaan la galo inaan mehersado markaa cumrada ka soo noqonnana uu ifuraya aan ku heshiino ka warran bay tiri waxaan ku ihi su-aasha markaad China aadaysa maxram miyaad qaadataa maya taa maxaaraan baa imaadan weydiininay xajka iyo beedka maxaa gaalgaalada ka dhigay markaan khayrka samaynayana su-aal baan qabaa inta kale markaan ordayada su-aal ma qabo taa sax maaha gabdhuhu markay dahab u baahan tahay markay qaraabo soo booqanayso markay gabadh umushay wax u gadayso markay aroos wax kaga qaybgelayso say ninkaad uga dhamaysata way taqaan markay masaajid tegaysa ee cashir diina soo qaadanayso inay garan weydaysa uga dhamaysan lahayd gar maaha masaladaas gar maaha tartiib misde diinta markay noqoto dagaal ha ka dhigine saad u sasaban jirteen u sasabta khayr allah idin billahi tawfiiq insha allah waa gabagaba insha allah su'aal ku soo khatimi doona hadii Allah idmo gabadhan waxay leedahay sheekhana ninkeyga ayaan subxinaa weekendiga sabtida iyo xadda badan ka wada filaya mararka qaarkood waxa aad ugu adkaada subaca kutubkan ka fiiriyay iman oga waxay diintu ka qabtaa alxamdulilah warda khayr allah siiye inta ay su-aal tahay inta ay fariin tahay baa ka badan gabdhihii kale ee fariinta ku socotaa reerkaa subcinaya reerana qur-aankaba ma yaqaanaanba ilmaha hataa kama dhegeysan karaan marka fariin baa inteena kale inugu socotee fariintaasay tahay inaan u qaadanay u baahan tahay khayr allah idin siiyo subacaas haddaad waxaad ku heshiiseen bay ku xirantahay haddaad ku heshiiseen korka ha laga akriyo khiyaanadu ma fin banaana khiyaanadu ma banaana haddaad u oga dhigto heshiis hadduu idinka dhexeeya cad oo odhanaya sidaas khiyaanadu ma banaana iyo qashku si ahaantiisa ma banaana laakiin waxaa kuu fudud inaad tiraa warniyo ilmooleyna waanahay ilmihii baa igu qayleeya marmar baan baxayaa anoo meeshii ku jiro casharkii akrinaya bay maskaxdeedu baxaysaayo ilmihii iyo aadaysaaye ee dulqaaday inaad u tiraahdaa ka fiican ogo waa qof kula jooga marunbuu isha kugu dhufanaya adoo isha ku xadaya khaainad beenale aad tahay oo ku dhihi doonaa uu aamin bixi doonaa inaad tiraahda ani adigu isku mid ma noqon karne anu ilmihii iyo maskaxdiibaa marmar ila tegaye haddaan marmar igu yar adkaato ishaan ku xaday haddaan isha ku xaday aragta ogow waan dadaalaya laakiin ishaada ku xadaya hadha markuu ku yihahda soo kuuma sheegin marar badan soo kuuma sheegin baa lagaga baxaa sakasha mar xaaladuusan aada u kacsanayn aadna u dareemaynin oo ilmihii si noqdeen oo yar buuqeen baa loo hoosgeliyaa way sidaasoo kaleeto ma marmar i qabsan waxunbaa igu soo dhiciya hadday saa iga yar noqotee dee hawaayahay sokan maalinkii kuu sheegay baa kaaga filan marka sokan maalinkii kuu sheegay baa kaaga filan inaad u sheegtaa wanaagsan wabilahi towfiiq جزاه الله خيرا وسؤاشي إنه قدام بيس إن شاء الله تعالى وحياة قبردن وقبر بيسن ونك هذا مسير روى شكل بدن وحياة هاي نحن نقول كرا حكم كيسة نك مرة مسيرة وولبا تهون أو حبكتشي تهون شيخ ومحان حيبنا الحمد لله هذا لما ما كان إلى منا واسجارة وعيوبها أنت هاي
dad ama ahla ama naasixa ama culumaa si gaara inay hawshaa u galaan si loo xaqiijiyo horta ninkani ma meel cidli uu ka diday mise waxbaa jira. way dhici kartaa isagoo wax jiraan in la eedeeyo meel cidlaa uu ka diday la dhaho way dhici kartaa, ama iyadoon waxba jirin waxyaabo u ekaysiin karo social media aan ka sheegnay. haweentuna ninkeeda wayna waari kartaa, jin bay ku ridi kartaa. soomaalida maqal gabadha tiri ninkeedii haddaan raba hebla waan ku waari karaa, oo yidhi ma waari kartid. waxay tiri inaan ku waari karaan ku tusiye maanta ogow raashin bay karisay si fiican bay u wanaagsan kaale hebla way tiri feeri ilmo yaroo xaaray bay tiri saxaro soomaha ilmahaan haa in yar bay ka qaaday raashinkii bay ku dartay. soo ma aragtid bay dhaawshan ma aha orod dad akhyaar ah oo ilmaadeertii odayaalna way marti qaaday way u yeedhay. raggii markay yimaadeen raashin macaana la soo dhigay waxay ku tiri ninkan waan ku dhibanay wax walba ka waswaasa. markaasuu wuxuu yidhi raashinka soo cuni maayo war iska daayo maxaa dhaxaar bay ku dartay waxaan baa haystay tiri waxaan baa haystay raashinkii baa la dhadhamiyey raashinkan macaan waa la qabqabtay warida berida raashinka qasab baa lagu cunsiiyey. hadda way tiri horta adoo indhaha bushan yihiin soo xaarku ma cunsiin haddaan raba waan ku waari karaa waxba haysdhibine tartiib bay tiri. marka intaad saa dhahdaan ood ragga hor keentaan waadna waari kartaan indhihiisoo shanaan gidaar waa u dhiibi kartaan markii laga hadla runtee daacadtiin wey. saa darteed si hoose haddii la yidhaahdo dad ahla ama raxiim ama naasixiin oo labadaba garan kara xaaladaana u kuurgala wixii jiree laga shakiyi karana xalliyo ka hadla gabadha isna waaniyay u baahan tahay. si hoosaa loo xalliya haddii la yidhahdo. si guud haddii la yidhaahdana rag masayre iyo dumar masayre horta rag masayraa ka xun uba ku dili waxba googoyn waxbu dili raggaa ka masayr xun wax la yaqaano wey wax dhib badan wey ragga haddii masayr ku dhaco. masayr aan macno lahayn rag badan oo ku dhacana way jiraan. qaarna waxaa laga yaabaa sheeko xumo inay gaadhay, qaarna waa xanuun. dadka qaarba meel bay ku xanuunsadaan, qayb weysaday ku waswaasaan ay ku xanuunsadaan. maantoo dhan markuu istijaystaba wuxuu leedahay weli hal saac uu musqusha ku jiri. qaarna salaadaa loo fadhiistaa allah masaajku iman su allahu akbar acuudu billahi min rajim allah weli afartan ragcadood dhammaan waa waswaas allahu akbartay ka haystiya salaada. qaarna gurigoodiiyo reerkooday ka waswaasaan. dumarkana qaar buu waswaaskaa ku dhacaa. waxaan inuu xanuun yahaa dhici karta. kow ilaahay ha loo baryo gabadhu qowqaada ilaahay ducada aqbala ha u barida ilaahay inuu caafiyo. kow hana loo sheego cid balwaaniso oo nasiixada iyo waxaan ka hadlaysa iyo cajaladana ha loo keeno. waxaa laga yaabaa wax nafsi oo kale inuu yahay takhtarna ha lala kaashado inuu xanuunsan yaha qofkaa dhici karta. aduu nin masayray inaad u haysato dhib badan isna uba dhiban yahoo jiran yahoo xanuunsan yaha dhici karta oo in la daweeyo u baahan yahay. marka mararka qaarkood nin xunoo wuxuu masayr badan oo kaa shakisan keliya ka arkine nin hadduusan sa ahaan jirin nin imtixaan iyo dhib la soo darsay oo bal duca iyo qur-aan iyo dawe iyo dhakhtar u baahan inuu yahayna xisaabtaa lagu darsado waa dheera. billahi tawfiiq. insha allah khayr allah inasiiyey oo ku celinahay halkaas uu inoogu dhamaaday. waxaan runtii u mahadcelinaynaa maamulka masjidka oo dowladda isbuuliyaana ay ka dhacdo iyo xubnihii mashaayikhda ahaa ee barnaamijka kasoo shaqeeyey markasuu nuura. waxaan leeyahay ilahi subxaana watacaala miisaanihi xasanaadka allah idin saaro. insha allah intaynu kulan kale isugu iman doono waxaynu kaga tegaynaa bixi illahi wagacaayati